marwooyin dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan ee nala joogta kuwa ka socda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ganacsatada bulshada qaybaheeda kala gedisan maamulka sare ee shirkadda isgaarsiinta Somtel mas'uuliyiinta Dahabshiil Group bahda warfidiyeenka bulshada qaybahooda kala gedisan ururada dhalinyarada ururada haweenka qof waliba oo magac iyo meeqaam huban oo munaasabada inagala sugan waxaan ku salaameynaa mar labaad iyo mar saddexaad salaanta islaamka oo aan hore uga dhawaajino waxaan rajaynayaa insha Allah inaan si toos u guda galno munaasabadeena waqtigu aad u kooban aawadeed iyo bulshada nagala soo qayb gashay oo aad u xamaasaysan isla mar ahaantaana ka war dhowraya nasiibkooda maanta waxaan abaalmarin doonaa hadduu eebba awoodda sare leh ogolaado 16 bisha July galabnimo Jimco ah ku dhawaad 1000 qof oo kamid ah dadka guuleystayaasha toddobaadka aynu ka soo gudubnay sida aad ka warqabtaan barnaamijkan ololaha ku shubo oo guuleyso waxaa la daahfuray 7 bisha July hotelka Ilayd ayaan ku qabanay munaasabadii ugu horeysay waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala maantana dadkii ugu horeeyay oo caanamaalay oo guuleystay in la abaalmarin doono insha Allah hadiyadaha lagu guuleysanayo waad arki kartaan gaari Hyundai oo new brand ayaad ku guuleysan kartaan bajaaj waxaad ku guuleysan kartaan maaragtay dhalo Samsung frinjeer qasaalad hadiyadaha aad ay u farbadan yihiin dahabka ay dumarku xirtaan rasiifaro kirada local cable TVs-ka aad ay u farbadan waa 10,000 oo hadiyadood laakiin waa sample kamid ah hadiyadaha aan xusnay insha Allah mobilada Samsung noocyadii ugu dambeeyay waad aragtaan insha Allah si toos ah aanu guda galayaa munaasabada waxaynu ku daafuran doonaa aayadaha Quraanka Kariimka sidoo kale waxa inoo raaci doonta kelimad wacdi iyo waana ah waxaan u yeerayaa walaalkeen Axmed Sheekh Cali Daahir soo dhawow Axmed wadaad maqlayso walaal stage-ka imow waqtigan inaan la dhowri doonto waa rajaynayaa insha Allah sidoo kale barnaamijku wuxuu laafka yahay warbaahinno dhowr ah TV-yada ugu afka dheer magaalada Muqdisho insha Allah waa ka dhawaajin doonaa laakiin Axmed ay iskiin dhaxbaxo insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم إخوة الأعزاء إلهي سبحانه وتعالى يا ماسكله قلبت حفلة أن آدك قروح ضبطن سوق عيكيني maadaama aan nahay dad muslimiin ah waxaa muhiim ah inaan isbaraarujinno ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay aayadda qur-aanka ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha waltandur nafsun maa qadamad liqad wattaquu llaha ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun dadka iimaanka laga helayo ilaahay ka cabsada qof kastana ha fiiriyo nafsad kasta ha fiiriso waxa ay berri u hormarsanayso ilaahay subxaanahu wa tacaala ayadda haddana wuxuu ku qatimay wattaquu llaha ina allaha khabiirun bimaa tacmaluun ilaahay ka cabso ilaahay ka cabsada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa alla khabiir oo idin og rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaguna wuxuu leeyahay ittaqi llaha xaydumaa kunta wa atbici sayi'ata alxasana وخالق الناس بخلق حسن إلهي سبحانه وتعالى وحو ليه إلهي كعبسو ميل كستو آجوكتو يا حالات كستو كسوغان تاي حمانتك هذا عدنا وناك راعسي حتى وناك حمانتا هاترتي دادكنا وحا كلا معامشاه دبيعد وناكسن وحا مهمة التقوى وحوايا وأساس الدين إلهي سبحانه وتعالى إن لقى عبصده وأساس الدين وإلهي أوامرتيسا إن لفرطومه إلهي حمانتيسا نواهيديسا وحيالا أوريبانا لقهرو
سيد علي وحو ليه التقوى مركو معنيناي التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وإن الله سبحانه وتعالى لقى عبصده لغو عمل فلو تنزيل كقرآن كريم كي شريعة الإسلام كلغو عمل فلو لغو قنع وحا إلهي سبحانه وتعالى وكسيي لونا ديار قروبة مالين كالرشدة قيامة إن لو ديار قروبة قفك محل الربا إلهي سبحانه وتعالى عبسيدي سينو دائمه إلهي سبحانه وتعالى شريعة سينو كرغمه حالة كستا يميل كستو كسوغن ياي أقوة الأعزاء وعربا كليا إن الرعصة كسو قتمه صدقة أمس جناعسية dadka ganacsanaya oo waliba ay kamid tahay shirkadda Somtel waxa laga rabaa wax kala ma ahan hantida iyo waxa Ilaahay siiyay inay dadka qayb ku celiyaan sadaqada waxa laga qaadaa dadka aqniyada ah waxaana loo celiyaa dadka fuqarada ah waxaan dhihi karaa barnaamijkan amaalmarinta ah waxa laga yaabaa dad badan oo fuqara ah inay hodan ku noqdaan waana sidii Mucaad bin Jabal rasuulku uu kula dardaarmay oo yiri waxa ka qaada dadka aqniyada ah hantida ka qaad kuwa fuqaradana ku celi waxaan rajeynaa dad badan inay ka faa'iideystaan waxaan u rajeynaa shirkadda sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri man dhal ladhi yuqridu Allaha qardan hasanan yudaa'ifu ad'aafan katira qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax amaahiya wax sadaqaysta wax la baxa waxa loo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u laaba ad'aafan hasana ربح الدنيا يمد آخرين يكون لنا رجينا وعن كسو كوا هذا الكيجا مركز تإن الله سبحانه وتعالى لحسوسنا هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الله سبحانه وتعالى ويهي مامولا أحمد الشيخ علي داهر آدياد ومهسين يهي وأنو مهد علينا كلمة دا وانا دا ومنو جديد إلهي نجي لكم كعمل فلا يا عيدي قرآن كريم كيكوري الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برنامج كان تمنك كونوا هديدود كسبوا وجوليسو شركة Somtel وشركة دي وجوه رئيسي أو جناسي أو صوب بندكتا وحن رجينا دوينها الصوماليين آد وجبكتين ومركي وجوه رئيسي على ركتان إن شركة فإذا كهشي مع ميشي هذا أما واحد إيك أرولس ريفينيو عن إن يدب وجوه عليسو طبعا كن أو هديدود أو جاري قيمة سويا أفرتهم كونوا دولار وكجرو وحنو مهد علينا يا تي في هذا لايف كاشبه ل تي في دلسن تي في يورباهنا هذا لامد كي لايف كاين بوجادين إن شاء الله تعالى سيدو كل بيت كينا Somtel Soomaaliya أنا واتكارك كرتان تبين تتوسكا سيدو كل وحنو مهد علينا راديو كلمية أو برنامج كسيتوس أو تبينيا راديو شبه لي راديو دلسن والامد وانو هذا مهد علينا وحن جعلها هنا يمين كنا كسر دويو بروجكتي أونر كتبانك كونوا هديدود شركة إسقارسين Somtel مدح السوق جينته يحرير كده دوينها Somtel أيان جعلها هنا نويرو إن هذا لسه وده دويسان مدانة أحمد عيسى حاجي مامل السودو مرتي شرفتي إن لجوك تقيبه ذاك اللي قد سنة إن شاء الله مدمد أيام موسي دونا وأنا عرب دبي دونا إن شاء الله مامل السودو سياد واحد بدني نوقتها ودول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال إمروين مدح هذا شرفت له كسوق الشيء برنامج كان كشبه وجوليسو طبعاً كل هديات وأنا ما دعلينا مال والباقي نوبة إمادات يمقام والباقي كفديان أنت أسكتي ما أنت وحافر حد إنه إن ما أنت صوب بندق إن هدية وجوهرية أي بعنا صوب شركة إسقارسين Somtel برنامج جدا مركي عن صوب بندقنا يحيى 4 هرة أو عن بلاوني لكن ضد أنت بدل مركي عن عرقنا السوشيال ميديا وحيوم ملينا إن واحد برانكي أما واحد دلنتهذا أو عن اللي بعيدين ما أنت أنا وحاربنا إذكم مرقاتك شعب كصوماليات ميلو بي جوجان أنت لايف كنا في رسالة أنت فريضة با إن ما أنت هديدي وبهري أو كونك هديو جارية إن ما أنت نهرتين وكوب إنه شرف وين أي نقطة إن معاميش أنا شركة إسقارسين Somtel عن فائدة قيب لباحة عن كل علينا ما أنت ذان سيدي عن كوبلان سنين با وعن بحنا هديدها أسبوع لها ما أنت أما معلوم البقى جمعة سيدو كلنا بيش مركز دماتنا هديو قالوا قالي أيام بحندنا ما أنت هديو إنك أبوه وين أو نبوه لسنا أيو وشعب كان قوي في الأيام وحي تهي وبجاديو وحاواي وموبيلو
samsung ah waa khasaalado horteeda yaallo waa cooking machine mashiinada cuntada lagu karsado iyo tv-yo lacag kaasha semester waxbarasho intaasoo dhan ayaa maantadan hortiina ku bixin doonaan sidii marka horeba aan ballan qaadnay barnaamijkan wuxuu ku bilaabanayaa uuna ku dhammaan doonaa si daahfurnaan ah xalaal ah xaq ah garsoor caalami ah oo bannaanka ah samtel ka madax bannaanna ay goobjoogyaal ka yihiin oo dad barti ah ay gacantooda noogu jareed garan doonaan maantadan waxaa soo bandhigaynaa hadiyadihii ugu badnaa waana shirkaddii ugu horraysay oo isgaarsiineed ama soomaaliya looga dhawaaqo 10,000 oo hadiyood oo qaali ah macaamiisheenna qofkii waxaan hoosta ka xariiqayaa ama aan bogaadinayaa qofkii isbuucaan dhaafay isbuucyada soo socda ayuu ku furan tahay isbuucan bilow ayuu ahaa maanta wixii ka dambeeyo maantadan laftigeeda simkaarada samtel waxay idin yihiin qofkii maanta simkaar aan wadin lacag la'aan ayaan ku siinaynaa tartankana caawadan haddana wixii ka dambeeya isbuuc soo socdana sidoo kale intii oo kale aan dhiibaynaa bajaajyadii waan dhiibaynaa moobeelladii khasaaladihii firiijyadii kulli waa wada dhiibi doonaa isbuuc walbana wuu ku furan tahay ha isdhihin isbuucii hore a ku dhaafay isbuucaan ma ka qaybgeli kartid waa ka qaybgeli kartaa anytime ayaa ka qaybgeli kartaa waxaan macaamiisheenna ugu hambalyaynaynaa ama ugu bishaaraynaynaa inuu arrinkan daahfurnaan doono warka maanta war badan meeshaan ma yaallo laysa alkhabaru kalmucayin waxaa maanta indhihiina ka arkaysaan ayaa ka duwnaan doono wixii aan marka hore inii sheegi jirnay maantaan hadiyadihii bajaajkii hortiina yaallaan waxaan ku qornay waa ujeediin winner guulaystaha samtel oo 10,000 oo hadiyood baabuurtii hoyandaayda ahana waxay yaallaan baakinkay soo geli waayeen baakinkaa hore yaallaan baabuurtii 0 kilomitarka ahaa agabyadii oo loogu talagalna halkan ayay yaallaan maantadan gacanta samtel way ka baxsan yihiin waxay diyaar u yihiin in lagu wareejiyo ama uu qaato ninkii ku guulaystay oo isbuucan top upka ama kusubashada sameeyey mudanayaal marwooyin barnaamijkan sidaan marka hore nii ballan qaadnay waxuu yahay xaq ma aha waxaan rabnaa waxaa noo wareejin doono dadka mas-uuliyiinta ee nagala soo qayb galay ee ka madax bannaan shirkadda samtel si looga madax bannaanaado ama hadal ay soomaalida waas naqaanaa ay dhahaan samtel ayadaa siisay ama shaqaalaheeda siisay ama dad howlwadeeno kale ayay siisay si arrinkaasi oo looga madax bannaanaado systemka hortiina ayaa lagu soo bandhigi doonaa waxaana wareejin doona mas-uuliyiinta maanta macnaha sharafta leh oo macnaha martida noo ah maanta warar badan ma yaallo waa maalintii abaalmarinta waxaan mugaadinayaa meel walba aad joogtid bartamaha iyo koonfurta soomaaliya samtel macaamiisheeda waxaan u mugaadinaynaa inuu barnaamijkan gobol walbaba u furan yahay ma aha muqdisho keliya gobol walbana waa ka qaybgeli karaan wuu u furan yahay hadda ka bacdii ha ku subtaan hana ka qayb galaan isbuucan jimco walbana waxaa inoo balan ah inaan beerta nabadda aan kusoo bandhigno kuna bixinno hadiyado qaali ah ay ku jiraan baabuurta hoyandaayda bajaajka waxaa kaloo sidoo kale rabaa inaan meeshaan ka sheego barnaamijkan 3 bilood ayuu socon doonaa 3daas bilood markay dhammaato 3 bilood kale ayaa barnaamijkaas sii socon doona hadduu barnaamijkaas 6daas bilood qofkii si toos ah uga qayb galo waxaan bixin doonaa apartment dhammaystiran oo dahab tower ah okay oo aad darsan tihiin sarta magaalada muqdisho ugu dheer inay tahay uguna casrisan ayadana waa bixin doonaa macaamiisheena ku siin doonaa macaamiil hadhowt intaa dhihi lahayd arrinkan waxaan u malaynayay dhalanteed haddadan waa run maantadan ayayna ka bilaabanaysaa hadiyada ugu badan ugu dhow ugu horeeya haddaan bixinaynaa ka faa'iidayso macaamiil meel walba aad joogtid hadiyadaada meel walba aad joogtidna waxaan kugu ballan qaadaynaa inaan kugu soo wareejin doono gacantana kaa saari doono aad iyo aad aan mahadsantihiin barnaamijka lagama sii horeyn qof walba uu u furan yahay simkaarkaaga qofkii aan samtel xitaa aan macaamiilkeeda ahayn hadda ayuu kusoo biiri karaa isla markiina uu ka qaybgeli karaa waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadweynaha shirkadda isgaarsiinta somtel waxaan filayaa tafaasiil waafi ah inuu naga siiyo ololaha ku shubo oo guulayso waxaan rajaynayaa dhammaan macaamiisheena somtel inay ka wada faa'iidaysan doonaan
ololahan aad u qiimaha badan oo ay Somtel ku abaalmarinayso dhammaan macaamiisheena isticmaala adeegyada shirkadda. bal iminkana waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan ee nala joogta. waxaa ka mid ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo aan leenahay waad mahadsan tahay. sacabkii soo dhaweyntu waa xaggiina. sidoo kale gudoomiyaha degmada waa beri oo aan jecelahay inaan u yeero manasada iyo seejka inuu noogu yimaado si uu u daafuro ololahan ku shubo oo guuleyso. isaga ayaa noo daafuraya insha Allahu tacaala. mudane Cabdicasiis Cusmaan Jaamac maamul hadaad marlayso mudane gudoomiye. kusoo dhawow barnaamijkan hadalkaaga dima ayaan ka dhiganaynaa waa noo hadli doontaa laakiin waxaan rabnaa barnaamijkan waxaa waaye dadka shacabka waxay kala socon doonaan shaashadaas hortooda hortooday kala socon doonaan. waxaa ku qoran hadda waxaa loo tartami doonaa tartamaha ugu horeeya wuxuu u tartami doonaa bajaaj way ku qoran tahay waa ujeedin bajaaj ayuu ku guuleysanayaa. saddexdaas xabo mid kamid a ayaa la siin doonaa gudoomiyaha maadaama gacantiisa ku taaban doono kalarkan asaa u doori doono. marka waxaa ku qoran start iyo stop. asaga gacantiisa markuu start dhaho gudoomiyaha markuu uu rabo maskaxdiisa uu ka doorto ayuu joojin doonaa. qofkii uu ku joojiyo oo lambarkaas uu ku istaago ayaa guuleystaha noqon doono. gudoomiyaha iyo macaamiisheena iskaaga baxo nasiib wanaagsan. gudoomiye soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ورن هذا أقرأ حسنا ما تنا كتقبل كلمة دافورك دافورنا برامج كان شركة Somtel ay keentay in la sameeyo hadiido la siiyo 10 kun oo qofood oo ku guuleysanayaan dadkaas oo loo fiirin in xogna ku shubtaan bis aan la kala aqoon dadka qaar waxay u maleynayaan dhalanteed laakiin hadda waxay ogaanayaan inay run tahay. كل واحد قياسنا إن أي هلي دونان قفل بنسيب كيس هلي دونا مثلا إن شاء الله قولة دي رجينا قفل بعمر رجينا نقول وأنا بالله أنا وما سنتي. gudoomiyaha inuu noo cadaan doono inay arrintan daacad tahay oo sax tahay ayay gudoomiye noo bilaabo. wuu bilaabay gudoomiyaha wuu bilaabay lambarada way socdaan. qof walba iyo nasiibkiisa qofku ku taabto uu ku joojiyo ayaa wuxuu ku guuleysan doonaa bajaaj. kolley waa u sacdi doontiin qofkaasna isla gudoomiyaha ayaa waxa next samayn doona gudoomiyaha u diin doonaa. ayay gudoomiye adeeg ku jirtaa maskaxdaada ka istaajin. gudoomiyaha waa istaajiyey waxaa ku guuleystay furaha 1 eber 6 2 1 13 8 24 lambarkaas meeshuu joogo ma naqaano. waxaan isku dayaynaa inaan qofkaas la xiriirno meesha uu joogo gobolka uu joogo si aan loo guddoonsiiyo abaalmarinta uu gudoomiyaha gacantiisa uu ka helay. haye lambarkaas waa mashquul macnaha waxaan malaynaa live ku jira uu arkay waa mashquul waa ku celin doonaa. qofka ayaan waceynaa qofkii guuleystay. saaxiib kolley internet TV waa naga fiirsanaysaa aan soo wacna noli. fadlan qofkii wacaya ha joojiyo aan wacen annagaa wacen stageka ka wacen ha joojiyo please. guuleystahana wuxuu noqday guuleystihii ugu horeeyey bandhiga 10 kun oo hadiyood ee shirkadda Somtel. waa isku dayaynaa mar kale isku dayaynaa maadaama tahta batuula ka waayahay gudoomiyaha lambarkan uu ku dhawaaqayaa wuxuuna u sheegayaa inuu hadiyadaha Somtel uu la ogaan doono. gudoomiye kusoo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم هذا أقرأ حسنا كل لمبرة قولتي
aniga ma kala aqoon stop iyo startii leedahay meelna oo ka bilowna meelna oo ku istaajinay waqtiga nasiib ay ahayd lambarkan 24 toddobaad ku guuleystay waxaan leenahay nasiib wacan bajaajaan ku guuleystay nasiib wacan aan leenahay nasiib wacan waa maasantiin هذا ما صدق قدوميها هذا ما سيد كلر قدومي كلر كي أدوق ما دام هذيك أدورته كلر كي أدوق لهاد كل ما دام تعبتها أصيل وضوء مرتها أيوة يا ما صدق ayaa loo daayay tolow macagaar bay noqon doontaa kalarka barwaaqada geedka bay noqon doontaa sacadaanka oo nabad aan laga doona insha allah waa su-aal daaweyn oo madaxa daalihiisa laftiga waa suudiinaya bal iminka waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo intaanan soo dhaweyn aan ka hormariyo adduun waa haween intaa la isuma hayeen nin doonaaba ha hadleen hooyadu waa lama huran erayada saarka ah waxaa laga hayaa abwaanka aad wada garanaysaan وياي عليس عيسى كاشة وحن جعلها إنه كسر دويو مع مهل دورة أن ولا جرنا إنسان بشر الصوماليين رول مودلوا وهو الصوماليين تبدأ ويدل يماموي كوي كفانا كدوميا أورك هوين كقرن كصوماليين مرو بطول شيخ أحمد كبالي وحن جعلها بلسول صعب كم مطلوب صعب يسولويت واحدنا ما مسولوا عليه ما شاء الله إن شاء الله تعالى ما مسولوا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد waxaan u hadcelinaynaa dhammaanteen shirkadda Somtel oo soo abaabushay barnaamijkan la isugu jaangooyayo inuu bulshadu wada socoto waayo Soomaaliya waxaa ka jira dabaqad sare iyo dabaqad hoose mana aha wax ilaahay loogu talagalay ummaddu waa siman tahay dadkana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa israaqa laakiin shirkadaha dalka ka shaqaysta waxaa la rabaa sida Somtel oo kale inay wax ku soo celiyaan bulshada danyarta ah ee u baahan shaqo abuurka layska badan inta badan wuxuu saaran yahay sida aan ognahay hooyooyinka Soomaaliyeed waayo carruurta marka ay koriso jaamacad gelisay waxooga u qabatay haddana shaqo la-aan ayaa dalka ka jirta marka wiil iyo gabadhba inuu wax bartay ayaa laga yaabaa inay guryaha joogaan ama ay ku sugan tahay xaqiiqada sidaa awgeed aadan mahadcelinaynaa Somtel garashada fiican taana waa kay ku buraan lahaayeen sababtoo ah business wuxuu u baahan yahay sadaqo wuxuu u baahan yahay in laga wax siiyo dadka u baahan in noloshooda kor loo soo qaado oo saboolka ah marka aad iyo aad ayaan u leeyahay xaqbaliyo waxaa kaloo barnaamijkan uu xiise u leeyahay waa wax maaragtay bulshadu ay isku dhexgalayso oo ay isku baranayso oo qof walbaba si niyadsani ah uu u aaminayo nasiibkiisa insha allah waxaan rajaynayaa qofka aan taaban doono nambarkiisa oo heli doona inuu ka faa'iido oo dhaqaalo badan oo noloshiisa wax ka tara ilaahay subxaana watacaala uu ku siiyo insha allahu tacaala waa mahadsan waayahay maama waxaa noo taaban doontaa dahabkii maadaama dahab yahay lambarkii start stop bismillah waa dahab waxaa loo tartamaya u sheeg bismillaahi raxmaani raxiim waxaa loo tartamaya waa dahab naaguhu dahabku waa jecel yihiin marka ilaahay ii soo aadiyey insha allah waxaan rajaynayaa wiil iyo gabar bacidi ku guuleysata dahabka ilaahay u baraariyo oo u barakeeyo bismillaahi raxmaani raxiim bilowda ugu socdaa ilaahay khayr ka dhigo waxaan taabanayaa marka stop insha allah marka ilaahay u aadiyo bismillah waxaa ku guulaystay noo akri walaal 5 faraha waxaa ku guulaystay 625 625 eber 7 1 5 2 qofkaas wuxuu ku guulaystay dahab ayuu ku guulaystay waxaan isku dayaynaa inaan wacno waxaan codsanaynaa dad kolley inta badan live way yihiin
inay dadka ay mashquulka teleefanada ka daayaan sugaana nasiibkooda marka waa wici doonaa qofkan insha allah hadduu kii hore mashquul ayuu ka bixi laayahay asxaabtiisa dhana u hambalyanaysa amaleynaa qofka mashaadka ku guuleysa waa loo hambalyeynaya amaleynaa kama wacinaa 5 eber 7 15 27 dadka waa wada live dadka waa wada mashquul markii ay maadaama ay idaacadihii u waaweynaa waddanka ay laaf yihiin dadka waa la wada fiirsanaya lambarkana dad badanaa garanayo gobolka ku guuleysta waxaa laga yaabaa dadka inay garanayaan inay wadacaan saas darteed mashquul ay yihiin laakiin waxaan ka codsanaynaa dadka qofka waa dhacay assalaamu calaykum walaal waa shirkadda Somtel ololaha kushubo oo ku guuleysto ayaa ku guuleysatay dadka guuleystaa ka mid tahay dadka guuleystaa ka mid tahay waxaa rabnaa idaacadaadna laga maqlayaa dadka guuleystaa ku jirta Somtel waaye marka magacaaga oo saddexaadna soo jeedid iyo gobolka aad joogtid ayaa soo dhow Abdullahi Xasan Cabdiraxmaan qolkee joogtaa baraha waa joogtaa loo sabciyo baraha waayahay waran waxaa ku guuleysatay 7 garaam oo dahab ah koleyba xafiiskeena barahawe xasan bare u tag insha allah alaabtaada lagu soo gaarsin doonaa maamada waxaana kugu wareejiyey nasiibkaas gacanteeda ku heshay gudoomiyaha batuule axmed salow السلام عليكم waxaan ku guuleysay 10 garaam oo dahab ah oo Somtel ku shubo insha Allah taala Allah ku barakeeyo waan ku faraxsanahay aniga aan waayo gudoomiye ma santahay xasan bare oo baraha jooga ayaa shirkadda musuqooga anoga ah ninkaas ayaa la xiriiri doonta insha Allah guuleystayaasha ka mid tahay ambalyo دكتور أحمد قبله gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ma sha Allah dahabka kulay inuu leeyahay ku soo baxay waxaan filayaa ehelkiisii walaalihii iyo marwadii tan loo yimid oo insha Allah nasiibku uu hagaagsan yahay waayahay ilaa iyo hadda labadii qof oo ugu horeysay ayaa guuleysatay oo aan abaalmarinay waxaan u mahadcelinayaa muuqaal baahiyaasha sida tooska u tabinaya Shabeelle TV Dalsan TV barta Facebooka Somtel Soomaaliya Astaan TV waan u mahadcelinaynaa sidoo kale RTN 5 Somali TV goobjoog iyaguna waan wada bogaadinaynaa insha Allah oo barnaamijka si toos u tabinaya radio kulmiye yaana ka tagin KNN waayahay bal iminkana waxaan jecelahay inaan u yeero aan soo dhaweeyo waaxda ka tirsan Somtel Soomaaliya waa waaxda ganacsiga oo ololahan hal abuurka ganacsi inoo keentay soo abaabushay sidaad hore uga warqabtaan horeyna waxaan u keenay in saacadaha shaqada xilli ka baxsan macaamiisha loo shaqeeyo oo ah xilliga habeenkii maalmihii dambe hal abuur ganacsi ayaan wadnaa waadna aragteen insha Allah waa dadweynaha Soomaaliyeed waan uga mahadcelinaynaa bogaadinta ay noo soo direen waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo aabaha ololahaas oo idil ninka odaga ina hogaamiya waa maamulaha guud ee waaxda ganacsiga mudane Cabdullaahi Cali Caamir waxaan rajaynayaa inaad ila soo dhaweysaan boos soo dhawow stage imow bal galabta dareenkaaga ku aadan dadkii ugu horeeyay ee Somtel abaalmarisay bajaaj iyo dahab ayaa la booday tolow qasaaladaha iyo frinjeerada ayaa la boodi doono way isweydiinaya laftayda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد marka hore waxaan salaamayaa madaxda sharafta leh nagala soo qayb gashay xafladan qiimaha badan oo ay ugu horeyso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe marti sharafta kale gudoomiyaha degmada Waaberi bahda saxaafadda dhammaan marti sharafta kale nagala soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan hadal badan meesha kuma unan harin
keliya waxaan u hambalyaynayaa kunka qof ee ugu horeysa xafladdan qiimaha badan ee maantay ku guulaystay barnaamijkan ku shubo oo ku guulayso. barnaamijkan markii aan bilaabayna sidii hore looga dhawaajiyey waxaa la qabay dadka qaar ay qabeen barnaamijkan inuusan ahayn mid sida aan u sheegayno u fuli doona. maantay waxaa markhaati ka tihiin oo inta live-ka ku jirtay inta meeshaan nagala fadhidaba ay markhaati ka yihiin barnaamijkan inuu yahay barnaamij guulaystay bacdama madaxdii iyo dadkii magaca ku lahaa bulshada dhexdeeda ee halkan fadhiyey ay barnaamijkii dadka guulaystayaasha iyagoo ay xulayaan. kombiyuutarkan aad arkaysaan waxaa ku jira dhammaan dadkii usbuucii lasoo dhaafay ku shubtay lacagahaas ay ku shubteenna isticmaalay oo iyagu ka faa'iidaystay. intaas ka bacdina maanta waxay u tartameen alaabaadkan qaaliga ah oo gawaarida Hyundai-ga oo 0 kilomitarka ay ugu horeeyaan bajaajyada. dabcan gawaarida waxaan dhiibi doonaa bishiiba mar ayaa loo tartami doonaa laakiin bajaajta iyo dahabka iyo alaabta aad aragtaan oo khasaaladaha iyo iskugu jira mobaylada iyo usbuuc kastaba waa la bixin doonaa waana loo tartami doonaa. dadkaas magaca leh oo nagala soo qayb gala xafladda ee aan ku qabanayno maalin kasta oo jimcaha beerta nabadda ayaa xuli doona. barnaamijkaasuna wuxuu noqon doonaa mid si cadaalada ku fula. intaas ka bacdi hambalyada aan u hambalyaynaa dadka guulaysta waxaa ku xiga dadka aan weli nasiibka u yeelan inay barnaamijkan ka qayb galaan. maantadan aan joogno meel kasta oo xafiisyada Somtel ay ku yaalaan waxaa diyaar uga ah shaqaale habeen iyo maalin shaqaynaya. shaqaalahaasu waxay gaarsiinayaan dadkii aan nasiib u helin inay simkaarka Somtel qaataan ayay goobahoodii ganacsiga iyo guryahoodii ugu geynayaan. beerta nabadda hadda aan joogno waxaa diyaar ku ah simkaarkii oo free ah. simkaarku waa bilaash keliya dadku way ku shuban karaan. maanta ninka ku shubta wuxuu ka qayb geli doonaa guulaystayaasha usbuuca soo socda maalinta jimcada aan abaal marin doono. waxaan marka ugu baaqayaa barnaamijkan waa barnaamij guul ah. qof kasta ha ka faa'iidaysto fursadahaas qaaliga ah oo shirkadda isgaarsiinta Somtel ay u soo bandhigtay. shirkadda isgaarsiinta Somtel programka waxaa ula jira adeegyo cusub ay soo kordhisay oo dadka hore ayna u haysan muhiimna ay tahay inay barnaamijyadaas cusub ka faa'iidaystaan. barnaamijyadaas waxaa ka mid ah in shirkaddu ay keentay $1 oo 2 maalmood qofka uu ku isticmaalaya internet iyo ku hadal free ah. hore umayna jirin waa wax shirkaddu ay soo kordhisay. waxaa la mid ah $5 bishoo dhan ku hadal ayadoon unlimited oo aan xisaabnayn. fursadahaas macaamiisha waxaan leenahay ka faa'iidaysta tartankaana ka qayb gala. waxaan rajaynaynaa in meeshaan maalinta dambe ay ka soo baxdo nin ama qof dumara oo ku shubtay bil gudaheed lacag $20 ama $10 wax u dhigma lacagtiisana ka faa'iidaysta gaari Hyundai-na gacanta ku dhigay. waxaan rajaynaynaa inaad u tartantaan barnaamijkaasna ka faa'iidaysataan. mar labaad iyo mar saddexaad waa ku faraxsannahay in maanta markhaati ah ka tihiin intiina live-ka inta meesha fadhida programkaasi inuu yahay program dadkuna ay ka faa'iidaysteen sida loo maamulayana ay tahay si cadaalada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام. toddobaadka soo socdana kun hadiyadood insha Allah macaamiishana ay gudoomi doonaan. bal iminka waxaan jecelahay inaan soo dhaweeyo dhinacii hablaha iyo jaleecina mar labaad hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi habeen kama baxdeen oo iftiin lama heleeno dadku uma hayaameen dayaxayga joogeen. maxamed ibraahim warsame walawal hadraawi ayaa erayada laga hayaa. insha Allah waxaan soo dhaweynayaa maamu marwo jawhar cabdullaahi ayaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo oo ah murashax xildhibaan 25 waa sanadkan 25 soo dhawaan leh insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أدبا ما سنتهي وحان هلكا كسلام يا دمان مدحنا شرفت بدن سمتك دهبشيل مدحنا الدولة الفدرال كتسعى تكون هيئاتها هوينك ورد البلشدة دلنيرة دمان بعد صحافة دمانتي وحي لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحان هلكا نوهم بلينيا shirkadda isgaarsiinta Somtel ee ku soo kordhisay bulshada dhexdeeda
hadiyada aada qaaliya u ah wax loo baahan yahay ah shirkadaha kale ama bisnisyada dhammaan dalka ka jira waxaan leeyahay sida samtel oo kale laidinkaga baahan yahay dakhliga soo gala shirkadda dib bulshada inay qayb ugu soo celiso alxamdulilahi rabbilcaalamiin mahad ilaahay bay u sugnaatay oo ilaahay solansiiyey inay bulshadooda kaga qayb qaataan hadiyadaan caadi ahayn oo meeshaan yaalla baabuur hayoonda iyo bajaajo iyo waxa la sheegayo aniga lafteyda waa maseersanayo oo haddaan ogaan lahaa kaarar badan baan qaadan lahaa haddeer laakiin halkaanaan ka qaadanaya 20 kaar oo ugu horeeya in la ii jaro aad baa umahadsantihiin samtel waxa qaaliga aad soo jeediseen haddeerna waxaan u taabanayaa qofkii nasiibkiisa ilaahay ka dhigo insha allah waxaanu ku guuleysan doonaa qofkaasi mobile samsung ah oo cusub bismillaah startaan leeyahay haddeer meeshii alla kugu duubo arkaynaa haddeeraan joojinaynaa insha allah nasiibkaaga waxaa halkaan iiga soo baxay furo 25 68 32 33 nasiibkaaga wuxuu noqdo insha allah nambarkaa la wacayaa mobile samsung aa ku guuleystay nambarkaasi waa mashquul dadka la wada wacay waxaan ka codsanaynaa ee live-ka ka wada daawanaya war haddii diina hadii soo gaartee mashquulka mobileka in laga daayo haddeeru dhacayaa السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم والله شركة samtel waaye barnaamijka ku shubo oo guuleyso 10,000 hadiyad waxaa ka mid noqotay dadka guuleystay oo hadiyadaha ku guuleystay fadlan waxaa kaa codsanaynaa inaad magacaaga saddexan iyo goobta ku sugan tahay noo sheegtid waxaa ku guuleystay mobile samsung ku guuleystay mobile samsung ku guuleystay موبايل سامسونج موبايل كوكوليسي magacaaga cabdiqaadir cabdulaahi lam xab haye intee joogtaa jowhara joogtaa miya guuleystaha saddexaad wuxuu noqday maasha allah gobolka gobolladii guuleysteen walaal waa kolleyba xaaji suubi iyo akhyaarta meesha loo joogo samtel iyo dahabshiil ayaa u tegi kartaa waxaan ku guuleysatay mobile samsung ah waana ku soo gaarsiin doonaa aad iyo aad aa umahadsan tahay isticmaalka shirkadda isgaarsiinta samtel asalaamu calaykum ninka mobilka ku guuleystay waayahay waxaad moodaa magaaladii caasimadda ahayd muqdisho weli ma hayno baraaba iyo jowhar inay aada nasiibkoogu u wanaagsan yahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe reer banaadir waa soo socdaa insha allah waa ka war dhowraynaa bal iminka waxaan jeclahay inaan soo dhoweeyo agaasimaha tv-ga dalsan mudane cabdirasaaq miro dhoore oo ku hadli doono codka dhalinta waxaan leeyahay soo dhowo agaasime baada warfidiyeenkana waad matalaysaa oo barnaamijkan sida tooska u tabinaya astaan dalsan shabeelle goobjoog rtn waa wada bogaadinaynaa radio knn ama kulmiye waa soo dhaweynaynaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeyso waxaan salaamayaa qof walba oo halkan fadhiyo lagama gaaro qof walba in la sheego title-kiisa laakiin waxaan ku salaamaynaa qof walba maqaamka uu ku fadhiyo xafladan sharafta badan ay soo agaasimeen shirkadda isgaarsiinta ee Somtel dahabshiil run ahaantii waxaan filaa dad fara badan in arrinkan uu yahay mid ay ka faa'iidaysanayaan waa iska easy waa isticmaal ugu badnaan $20 $10
ku hadal ama internet u isticmaal sidoo kalena markaasi ku guuleyso hadiyado markaasi ay kugu talagashay Somtel oo run ahaantii ah kuwa aad iyo aad u qaali ah inta indhahaynu ay qabanayeen halkan waxaa yaala markaasi gaari Honda bajaajo iyo markaasi hadiyado kale oo aad iyo aad u kala duwan insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaan wareejin doonaa si wanaagsan qofka xiga markaasi aan wareejin doono si nasiibkiisa uu helo wuxuu ku guuleysan doonaa lacag kaash oo dahab ah oo $50 ah marka waxaynu eegi doonaa qofka nasiibkiisa uu noqdo wuu wareegayaa numberka tolow markaan ani waxaan rajaynayaa in qof gobolka Banaadir jooga markaan inuu soo baxo maadaama Baraawi iyo Jowhar iyo inala aad marka hore waan joojin doonaa waxaan jeclaan lahaa inaan u saacbino qofka numberkaasi uu soo baxay waa furahal 34 eber 726 qofkaasi waxa uu ku guuleystay lacag dahab oo cash ah oo cadadeedu uu gaarayo $50 waxaan jecelnahay markaasi inaan wacno sida hore loo sheegaba waxaa jira dad fara badan oo live-ka kala socda barnaamijkan oo daawanaya isla markaana ka gaarsiinaya qofkii inay u hambalyeeyaan waxaan ka codsanaynaa dadkaas in markaasi ay la sugaan inta Somtel mas'uuliyiinteeda ay kala xiriirayso si loogu sheego qofkaas in uu ku guuleystay lacagtaas kaashka oo $50 ah waxaana qofkaasi ugu guuleystay inuu isticmaalay kaarka ku hadalka ama internetka ee Somtel oo markaasi ah shirkad run ahaantii aad iyo aad ula shaqeysa xiliyadan jiilka cusub ee soo koraya qofkaasi waa mashquul waxaan rajaynaynaa in si gaar ah ula xiriiri doonaan insha Allah hadduu ilaahay idmo shirkadda wadaansantii waayahay agaasimo cabdirasaaq miro dhoore aad iyo aad u mahadsan yahay waan soo xiranaynaa waqtigu aad inoogu kooban aawadeed waxaan rajaynayaa hadiyadaha 10,000 in laga wada faa'iideysan doono toddobaadyada soo socdana gawaarida bajaajta laptopka yani Samsung TVs-ka waxaas oo dhan dahabka ay dumarku xirtaan aan wada arki doono receiverada TV-yada oo local cableska kulli la wada arki doono waxaa inoo soo xiri doona kusimaha mareeyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Somtel ahna madaxa waaxda shaqada iyo shaqaalaha shirkadda Ustaad Mukhtaar Xasan Maxamed maamul waxaan leeyahay soo dhawow jimco wanaagsan waxaan rajaynayaa inaad noo soo xiri doonto insha Allah toddobaadkii koowaad 16 bisha July guuleystayaashii ugu horeeyay 5 qof oo ugu horeysay oo aan si toos ah ugu abaalmarinay hawada dadweynaha ee wada arkayaan live بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ضمان مرت شرفت كسوق الجشي مسؤوليتك الدول نوال با مقامك يو ماركتي منانت أولي هاي أيا كسو دوينينا وانا وجمعت علينا كسوق الجلك أي كسوق الجلين برنامج كان آتك أقيمها بدن ما أنت bisha 16 ay tahay maalin jimco ah waxaan maaragtay inoo qabsoomay guuleystii u dambeeyay ayaan helnay hal mar ayaa lala hadlayaa wax yar walaal waa shirkadda isgaarsiinta Somtel waaye waxaad ku guuleysatay dadka waxa ka mid noqotay guuleystayaasha ku shugo oo guuleyso walaal magacaaga saddexan iyo waxaan noo sheegtaa magaalada aad joogtid iyo degmadooda fasax dheeraad joogtaa gobolka Bay okay magacaaga saddexan noo sheeg Nuur Mustafa Maxamed waxaa ku guuleystay $50 oo dahab ah oo shirkadda isgaarsiinta kugu talagashay hambalyaa ku leenahay waana kaaga mahadcelinaynaa isticmaalka shirkadda isgaarsiinta Somtel aad iyo aad u mahadsantahay waayahay guuleystihii u dambeeyay ayuu ahaa mar dambe ayaa la helay telefonkiisa aan sii wadano maanta waxay noo qabsoomay abaalmarinta xafladii u horeysay oo abaalmarinta ah guuleystayaasha 10,000 oo hadiyadood waxaan u abaalmarinaynaa guuleystayaashii halkan laga sheegay waxaa dhiman oo maaragtay inoo harsan guuleystayaal aad u tiro badan oo aan soo bandhigi doonaa hadduu ilaa yiraahdo jimcaha soo socda
sidoo kaleeto waxaan samayn doonaa dadka hadda guulaystay bajaajka ku guulaystay iyo moobeelada iyo dahabka hadduu yidhaahdo jimcaha dambe ayaa halkan keeni doonaa oo la guddoonsiin doonaa hadiyadihii ay heleen marka barnaamijka sidaas ayuu inoogu socon doonaa muddo 3 bilood ah jimco walbana xafladdaas abaalmarinta ah way jiri doontaa bishiina waxaa jiri doonaa xaflad abaalmarin oo weyn oo aad u ballaaran oo lagu bixin doono gaari Hyundai ah dhammaan marka ummadda Soomaaliyeed ay ku nool muxuu ahaa gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo adeega Somtel maaragtay isticmaala iyo kuwa aan isticmaalin intaba waxaan maaragtay ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan fursaddaas waa fursad qaaliya dhammaan ayay u furan tahay macaamiisha Somtel ee hadda iyo macaamiisha mustaqbalka intaba waa wada furan tahay waxaan leenahay ha laga wada faa'iideysto ha loo diyaar garoobo maaragtay barnaamijyadaas aadka u qiimaha badan xafladeennii maantana halkaas ayaan kusoo gabagabaysanaynaa aad ayaa u mahadsantihiin dadka ka soo qayb galay inta guulaysatayna mar labaad waa u hambalyaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed